السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنالك مركلة سود واضح أدي هذا ومهتسنتين مانت وإسنين وأنا أفري اللباتنك بشان نوفمبر كوبي تبنات سنة كلابدا كن يشاني اللباتنك مقال كان وحن ربائنا ندي كل وذاقه وزيرك أمني جودها أمريكان كريستين أوم أو شلي بقتي مقالة مينيابوليس أي وحي كهذا الشيء هذا الكلمة حوين ترامب كسو يري وها إن سوماليدا لجا كنسلايو TBS تا sharciga sida ku meel gaarka ah ay u haystaan arintaasi maxay ka tiri waan idin la wadaagaya iyo sidoo kale riboodka wargeys laga leeyahay New York City Journal uu yiri ururka argagixisada ah ee al-shabaab ee fadhigiisu yahay Soomaaliya waxa laga fangareeyaa oo laga maalgeliyaa lacagta canshuurta oo ay bixiyaan dadka reer Minnesota arintaasi oo xawaaladaha iyo lacagaha dadka Soomaalidu ay wadanka Soomaaliya u diraan ee qurba joogta ah ayaan idinla wadaagaya iyo waliba mid kamid ah hogaamiyaasha xisbiga Republicaanka ah oo laga soo doorto gobolka Minnesota oo aqalka wakiilada ku jira oo maanta waraaq u diray wasaaradda cadaaladda oo dhahayo waxaan doonaynaa inaan jawaabo ka helno musuqmaasuqa ka jira gobolka Minnesota kadib markii riboodkan uu soo binimadii jimcaha bartiisa True Social uu ku soo qoray in Soomaalida gobolka Minnesota musuqmaasuq balaaran ay sameeyeen balaayiin dollar ay xadeen sidaas darteed uu kansalayo temporary protected statuska oo la siiyo wadamo ay Soomaaliya ku jirto dadkooda marka wadankan ay sharci darada ku soo galaan horta barnaamijkan waxa la siiyaa 11 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto sidaan hore idin ku sheegay hal sano iyo bar ama 18 bilood ayaa la siiyaa marka ay ka dhacdo wasaaradda amniga gudaha ayaa awood u leh waa ay qiimeynaysaa markaas kadib in loo cusboonaysiiyo iyo in laga joojiyo waa suuragal labaduba marka hadda Trump ilaa ay markii uu xilka la wareegay wadamo fara badan oo Haiti, Venezuela, Cuba iyo Nicaragua ay kamid yihiin ayaa la kansalayay walow kuwa qaarkood maxkamadda la tiigsaday oo dib loo soo celiyay marka hadda midda Soomaalida 18 bilood waxa ay ku eg tahay bisha March ee 17 sanadka 2026 ee soo socda September 18 sanadkii 2024 ayay u bilaabatay hadda dadka Soomaalida ah ee TBS ta haysto Mareykanka waxa lagu qiyaasayaa 705 qof oo 500 oo kamid ah Minnesota ay ku nool yihiin marka waa dad aad u yar hadii si loo fiiriyo haddaba marka wasiirka amniga gudaha oo iyadu awood u leh inay kansasho ama ay muddo kordhin u sameeyso wadamada TBS ta haysto marka ay ka dhacdo madaxweynuhu isagu wasaaradii asaga magacaabay oo waa uu kula talin karaa ama waa uu ku amri karaa laakiin go'aanka waxa iska leh wasaaradda amniga gudaha shalay waxay booqatay magaalada Minneapolis waxaana lacaga $10,000 ay guddoonsiinaysay oo bonus ah shaqaalihii TSA da 43 maalmood oo dawladdu ay shutdown-keeda ama ay xirneed si joogto ah u shaqeynay oo shaqadooda aan hal maalin ka baaqanin markii ay lacagahaasi guddoonsiisay kadib ayaa su'aalo laga weydiiyay arrimaha TBS ta oo madaxweynuhu uu yiri dadka Soomaalida ah waa kan kansalaya wadankoodii ayaana dib ugu celinaya maadaama gaangis ay noqdeen lacaga balaayiin dollar ah ay lunsadeen sida bartiisa True Social uu ku sheegay marka wasiirka amniga gudaha shalay markii arrimahaasi wax laga weydiiyay waxa ay tiri barnaamijkan markiisii horeba waxa loogu talagalay inuu ku meel gaar ahaado sida magaciisa ka muuqato temporary protected status waxana ay sheegtay waxa barnaamijkan la soo dejiyay 30 sano ka hor 1991 waxana loogu talagalay markasta uu dhaca in la qiimeeyo xaaladda dadkan wadankii ay ka yimaadeen ma yihiin mid dib loogu celin karo mise sidoo kale ma ahan marka waxay tiri waan qiimeynaynaa marka ay dhacdo oo hadda 3 bilood ku dhawaad ay ka harsan tahay markaas kadibna wadamada loo qoondeeyay in la siiyo shakhsiyaadkaba waan arki doonaa haddii ay u qalmaan in loo cusboonaysiiyo iyo in kale barnaamijkan markiisii horeba ku talagalkiisu ma ahayn ayay tiri in dadka magangelyo lagu siiyo asylum program ma uusan ahayn marka sidaas darteed waxay tiri marka uu dhaco qiimeyn ayaan ku sameyn doonaa wadanka xaaladiisa ayaan eegi doonaa markaas kadib ayaan go'aan ka gaari doonaa in loo cusboonaysiiyo dadka Soomaalida waxana la weydiiyay sidoo kale ma dadka Minnesota ku dhaqan oo kaliya ayaa TBS ta laga kansalaya ma ay tiri barnaamijkan waa federaal waxana loogu talagalay guud ahaan wadanka dadka ka jooga wadankaasi ee TBS ta haysta 11 wadan ee la siiyay hadii la kansalayo dadkaasi meel kasta oo Mareykanka ay ka joogaan waa ay quseynaysaa haddaba iyadoo arrimahaasi ka hadlaysayna waxa ay tiri Well, TPS is a program that was always meant to be temporary. It's a program that is put in place, and I believe for Somalia over 30 years ago.
and will need to be evaluated to make sure that it comes and is always implemented in the process for which it was intended. So that's something that will go forward, and I know that the President wants to bring integrity to our programs and make sure that they're applied appropriately to the individuals and to the countries to which they're supposed to benefit. We plan to follow the process that's in law to evaluate TPS and how it applies to different countries and individuals from them. It was never meant to be an asylum program. It was always meant to be put in place after an incident or an event on a temporary basis, and that's what the evaluation will be. Well, that's not under the purview that I have the latitude to weigh in on. That's an evaluation that's done by the federal government, and that's what they'll look at, is to see if something from 30 years ago, when this designation was given, if it still holds true and if the individuals still qualify for a TPS program. It will be something that we'll go through the process on and evaluate. There is a timeline as set under statute that every single country's TPS program gets evaluated on. The evaluation applies to how the United States of America interacts with the country when it comes to temporary protective status, and so traditionally and according to the law, it gets applied across the country. arrintaasi TPS haddii halkaasi aan kaga gudbo waxaa jirtay wargeys ka soo baxa New York oo City Journal la yiraahdo in uu qoray warbixin dheer uu leeyahay kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab ee fadhigeedu yahay Soomaaliya isla markaana xiriir la leh ururka argagixisada caalamiga ah ee Al-Qaacida in laga fagareeyo gobolka Minnesota oo lacagta canshuur bixiyaasha Mareykanka iyo midda reer Minnesota ba lagu fangareeyo. Wargeyskan waxa uu ciwaan uga dhigay maalgeliyaha ugu weyn ee kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab waa canshuur bixiyaasha dadka reer Minnesota ayaa ciwaan looga dhigay, waxana uu soo xiganayaa mas'uuliyiin hore oo la dagaalanka argagixisada dowladda Mareykanka kala shaqeyn jirtay, xubno baarlamaanka gobolka Minnesota ku jira iyo dad dhaqaalayahana ayuu soo xiganayaa wargeyskan. waxa uu sidoo kale leeyahay lacagihii malaayiinta dollar ahayd ee laga xaday gobolka Minnesota ha noqoto Feeding Our Future oo 77 qof dacwad lagu soo oogay, 56 ka midana ay dambigooda qirteen, ilaa iyo haddana ay jiraan 4 qof oo loo xukumay, kuwa kalena ay xukun sugayaal yihiin in lacagahaasi tii kale oo Medicaid-ka iyo tii autism-ka caruurta qabta xanuunka autism-ka loogu talagalay dhammaanba lacagahaasi la xaday inay galeen gacanta kooxda Al-Shabaab oo ah koox argagixiso xiriir la leh Al-Qaacida fadhigeedu yahayna Soomaaliya. City Journal-ka marka waxa uu soo xiganayaa sida aan idin sheegay saraakiishan la dagaalanka argagixisada ee Mareykanka ka shaqeyn jirtay, waxana uu leeyahay in ay rumaysan yihiin in qaybo kamid ah lacagahaasi la xaday ay gacanta u galeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. barnaamijkii Medicaid-ka lacagihii Social Service Program-ka loogu talagalay in wadanka dibadiisa loo diray oo lagu diray ayna lacagaha cash-ka ah waxyaabaha lagu xawilo sida in xawaalada oo xawaala ay soo qaadanayaan, waxana ay sheegeen in lacagahaasi marka ay gaaraan Soomaaliya sida baarayaashu ay sheegeen lacagahaasi qayb kamid ah amaba share ay qaadanayaan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab, xitaa haddii dadka diray lacagahaasi aysan ugu talagelin in gacanta kooxdaasi ay gasho. marka waxay leeyihiin lacagahaasi marka la diro waxa qayb ku leh kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. macnaha Soomaaliya waa arkay dowladda Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay inay la dagaalameysay dadka lacagahaasi ama zakawaadka waxyaabaha ay Al-Shabaab ay ka qaadaan oo la yiri lacag ma siin kartaan, kaamirooyin meelo fara badan lagu xiray. marka dadka diray xitaa iyagoon ogeyn ayaa waxa ay leeyihiin lacagahaasi qaybo kamid ah gacanta kooxda Al-Shabaab ayay ku dhacayaan. wadankan Mareykanka qofku haddii koox argagixiso uu lacag u diro waa dambi, qofkaasi waa la xiraa. Mareykanku si aad ayay ula socdaan, marka arrintan saameyn ma ku yeelan doontaa xawaaladaha Soomaalidu ay leedahay ee meelo kala duwan Mareykanka ku yaala, isla markaana dadka qurba joogta ah ee lacagaha ay ku diraan. sidoo kalena David Ganther oo sidoo kale ka tirsan sanadka gobolka Minnesota ayaa waxa uu leeyahay musuqmaasuqan lacagihii loogu talagalay dadka u baahan ee nugul in lagu caawiyo isla markaana si dhab ah ugu baahnaa lacagahaasi ma helayaan oo waxa ay ku dhacayaan gacanta dambiilayaasha sida uu sheegay. waxana ay xaqiijiyeen sidoo kale oo reportkan ku qoran in senti kasta oo Soomaaliya loo diro oo si ay noqotaba ha noqotay uu uga faa'iideynayo kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. sidoo kale reportkan waxa uu soo xiganayaa in sanadkii 2023 1.7 bilyan ay qurba joogta Soomaalidu ay Soomaaliya u direen. xitaa miisaaniyadii sanadkii 2023 ee dowladda Soomaaliya lacagtaasi waa ay ka badan tahay. waxayna leeyihiin 40% dadka Soomaalidu ee Soomaaliya ku nool waxa ay lacag ka helaan
dadka ehelkooda ee qurba joogta ah ee wadamada kala duwan ee caalamka ku nool. Marka sida muuqanaysa hadda waxaa la leeyahay oo lagu shaabadaynayaa Soomaalidii gobolka Minnesota lacagihii balaayiinta dollar ahayd ee maqneed oo hadda baaritaanku uu ku socdo sida Feeding Our Future, tii Medicaid-ka iyo tii Autism-ka waxay leeyihiin wadankii ayaa loo diray, sidaa darteedna waxaa qaybo ka mid ah gacanta ku dhigay kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. arrinta la yaab kale waxay tahay madaxweyne Trump markuu jimcihii soo qorayay qoraalkaasi bartiisa Truth Social-ka khamiistii oo ka horeysay waxa wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay soo saartay degniin heerkeedu yahay midka afraad oo level 4 ah oo ah ha u safrin Soomaaliya. Trumpna wuxuu leeyahay dadkan wadankooda ayaan ku celinaynaa. Marka wasaaradda dowladda inay kala hadlayso Mareykanka oo wasaaradda arrimaha dibadda ay leedahay yaan loo safrin Soomaaliya qatar ayaa ka jirto digniintii midii ugu dambeysay level 4 ay soo saarayso. Trumpna uu leeyahay dadkan wadankooda ayaan u celinaynaa, arrintaasi isma qabanayso. Marka dowladda inay kala hadlayso ayaa halkaasi ka muuqata. Arrintan waa arrin hadda soo korotay. Marka waxaa sidoo kale maanta jirta in Tom Emmer oo xubnaha aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka ka tirsan oo Minnesota laga soo doorto hoggaanka ku jirana sidoo kale xisbiga Republikaanka ee aqalka wakiilada inuu maanta waraaq u diray xeer ilaaliyaha guud ee dowladda federaalka ah ninka la yiraahdo Daniel Rosen. waxa uu leeyahay waxaan doonaynaa inaan jawaabo ka helno musuqmaasuq baahsan ee ka jira gobolka Minnesota. waxa uu sheegay in loo baahan yahay in arrintaasi jawaab degdeg ah laga helo. waxa uu sheegay in arrintan aysan qatar ku ahayn lacagtii canshuur bixiyaasha gacanta kooxaha argagixisay ay galayso ammaanka qaranka, laakiin waxa ay dharbaaxa ku tahay wejiga looga dhuftay dadka Mareykanka ah ee shaqada adag qabanaya ee canshuurta bixinaya. waxaana uu sheegay in maamulka uu hogaamiyo Tim Walz arrintan looga baahan yahay in ay jawaab cad ka keenaan. waxa uu yiri inay tahay inaysan awoodooda aysan ahayn oo arrintan aysan waxba ka qaban karin oo micnaheedu ay tahay inaysan u qalmin inay gobolka hogaamiyaan ama inaysan doonaynin in ay meesha ka saaraan wasaqdii ay iyagu sameeyeen. waxaana sidoo kale jirta in dhammaadka sanadka soo socota ay doorasho u geli doono Tim Walz gudoomiyaha gobolkaasi oo xubno badan oo Republican ah oo afayeenka aqalka wakiilada ee baarlamaanka gobolka Minnesota Lisa Daymeth ay ka mid tahay. marka waxaa laga yaabaa marka sanadka soo socda doorashadaasi ay dhacdo in gudoomiye Republican gobolka Minnesota uu yeesho sababo la xiriira musuqmaasuqan hadda dusha laga saarayo Soomaalida oo intooda badan ay ku lug leeyihiin, haddana la leeyahay lacagtii Soomaaliya ay u direen ay xadeen waxaana ay gacanta u gashay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. marka arrimahaas oo idil ayaa is haysta waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan nabadgelyo.